السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت يوون عقبضن أضبانيني سلامينا نرلو عن بانيدين رجينينا يفرحتا أمي كسور دوادا كنال كينا عافيماتك دكتورك عافيماتك قويسك مقالكا وحيدن كسو قادنينا و free from constipation. free constipation waxaad xor ka noqotaa ama aad ka dawowdaa ama aad saafi ka ahaataa calool istaaga. calool istaaga ayaan ku soo qaadan doonaa 3 qaab oo adigu oo guriga jooga ama markaa goob kasta aad joogto ku munaasiba inaad calooshaada aad ku socodsiiso. sidaynu horu tilmaamnay xanuunka loo yaqaano constipation-ku ama calool istaaga waxa loo tixgeliyaa inuu yahay xanuunada ugu waaweyn ee ku dhacay ibni aadanka. guud ahaan waa mid ay dhakhaatiirtu isku waafaqsan yihiin arrinta calool istaagu inuu yahay xanuun sababtoo ah qofka waxa uu ku sameynayaa in qofkii waxyaabihii ka soo baxayay dabadda uga soo baxayay inay isku taagaan. taasina waxa ay dhalin kartaa inay markaa uu beerkii shaqadiisii qabsan waayo oo uu sameyn waayo functionkii beerku lahaa inuu qaban waayo. hadday dufaankii tahay iyo hadday subagii tahay iyo hadday saliidii tahay iyo hadday sonkortii tahay iyo all that things inaanu qaban karayn oo marka khashinku waxa isku tuula waxyaabo uskaga ama wasakha ayaa isku tuulaysa qofka haddii calooshiisu taagan yahay beerka iyo inta uu ku jirto dhan. sidoo kale waxa uu hakad galaa oo runtii si ballaaran hakad u galaa shaqada kaliyaha ayaa iyaguna khatar ku jira ama iyaguna dhibaatoobi kara. qofku waxa uu develop gareynayaa isla markaa calooshu ay istaagtaba madax xanuun joogta. waxa kale oo uu develop gareynayaa beerka qofka inuu xanuuno. waxa kale oo uu develop gareynayaa haddii waliba calool istaagiisu sii socdo inay kaliyuhu ay xanuunaan. ugu dambeyn marka dambe haddii qofka caloosha uu socodsiin waayo waxa uu saameeyaa organada aadka u qaaliga ee sida maskaxda iyo wadnaha. haddaba haddii ay khatarta ay abuurayaan oo calool istaagu uu dhibtaa leeyahay oo mashkiladda uu leeyahay oo xanuunadii waaweyn ay ka duuli karaan ama ay ahaanayaan saldhig ay ka haadaan oo markaa ay qofka ka weerari karaan dhibaato ay ku keenayaan waxaa qurux badan qofku inay markasta calooshiisu socoto. sidaas ayaa u wanaagsan u caafimaad fiican qofku uu galayaa jawi macaan oo aanu madaxu xanuunaynin oo aanu dhibaato dareemaynin oo uu galayaa comfort life ama nolol raaxo leh. waxa kale oo uu galayaa qofku inuu ahaado qof resting and relaxation dareema inuu nasto oo markaa uu ahaado qof nafaxaadsan oo istirax ku nool ayuu noqonayaa. kuwaas ayuu qofku dhexda baalanayaa caafimaad ayuu helayaa wuxuu helayaa markaa xagga cimrigiisii inay ka qayb qaataan. haddaba 3dan baad laabta ka ogaan doontaa insha Allah. qodobka koowaad ee 3dani waxa weeyaan waa tomato juice. waa yaanyada ama xabuubta ama marba sida loo yaqaano xabuubta inoo saaran ama yaanyada inoo saaran shaashada aad ka arkaysaan ayaad ka dhiganaysaa cabitaan iyo juice. waad soo qaadanaysaa kadibna waad maydhaysaa si fiican baad u maydhaysaa. marka aad maydho waxaad ka diyaarsanaysaa cabitaan oo waad shiidaysaa. koobka lagu shiido cuntada ayaad soo qaadanaysaa waad ku shiidaysaa. marka aad ku shiido 2 xilli ayaad cabaysaa. inaad cabto marka salaada hore calooshaadu ay marantay haddaad cabto calooshaadu way socodsiinaysaa. tamaatadu waxa ay leedahay ama yaanyadu waxa ay leedahay waa high fiber fruitskay ka mid tahay. waa qudaarta fiber badan bay leedahay. gas bay leedahay. gaska ay leedahay waxa uu soo nadiifinayaa caloosha si wanaagsan buu soo nadiifinayaa. ciladna dareemi maysid wixii markaa dhibaato ahaa ee cuntadii aad cuntay calooshaada ku taagnay ee isku bedelaysa inay ku dhibaatayso ee isku bedelaysa inay khashin noqoto ee isku bedelaysa inay ahaato markaa substances aan wanaagsanayn oo jidhkaagii markaa dhibaya ayay dabadda kaaga soo saaraysaa. dabadda ayay kaaga soo saari doontaa insha Allah. haddii aad markaa subaxa qofku jaanis u heli waayo ama dadka inta badan subaxii cuntada ku ilaa cunto ay cunaan aan cabitaanka ka horreysiin aad tahay xilliga maalintii marka calooshaadu ay faaruq noqoto ayaa isticmaali doontaa. shardiga ugu weyn waxa weeyaan inaad ugu yaraan koob ama koob iyo badh aad ka cabto oo juice waa tomato juice.
كوب أما كوب يبربات كعبيسة أما لبا كوب عبي كرتا لكن هل حباد cunto ku goosatay maaha xilliga dab la gelin maayo laakiin waxa uu shardiyaa inay nadiif tahay inay si fiican u soo bislaatay adiguna inay si wanaagsan aad u maydho oo si fiican aad u maydho ayaa u shardiya shuruudahaas ku xidhan kadib calooshaadii way ku socodsiinaysaa oo si wanaagsan ayay kugu socodsiin doontaa biidmillah haddaad wadada marto oo xilliga calooshu maran tahay aad samayso waliba wax dhibaato ah ma laha waana jabantay dhaqaale ahaan waxa laga yaabaa inay waxyaabaha kale caloosha socodsiiyeen ay aad uga jabantay ama ta ugu jaban inay tahay dhinaca kale waxa ay leedahay fiitamiino extra waxa kale oo ay leedahay minerals waxa kale oo ay leedahay marka leucobain maadada la yiraahdo ayaa iyadana dabcan sidoo kale ku jirta waxay midabaysaa oo dhinaca pigmentiska iyo maqaarka qofkana ay ka qayb qaadataa qofkana way qurxisaa awoodda jidhkana way u fiican tahay calooshana waa ay ku socodsiinaysaa taa dabcan inaynu aad u joogteen oo qofku aad u ilaaliyo ayaa aad ula socda ayaa qurux badan qodobka labaad waxa weeyaan waa apple juice-ka tufaaxa oo cabitaan iyo juice isagana laga dhigtaa tufaaxa oo aad ka dhigata cabitaan iyo juice ayaa waxa uu yahay qaybta labaad ee runtii caloosha socodsiiya laakiin waxaanu tilmaamnay in badan aynu ka hadalnay tufaaxu dadka xanuunada gastriska ama gastritis-ka la yiraahdo leh waa ka mamnuuc way ku kicin karaa mamnuuc kama aha dad qaadan kara ayaa jira laakiin haddii uu yahay ay siidhatigaagu mid aad u fara badan tufaaxa inaad ku seexato mid habboon maaha xadaamuuska inaad ku seexato habeenkii aad si cunto maaha waa kugu kacaya subaxa ama habeennimadaba waxaad dareemaysaa waa dadka iyagu gaaska already leh dadka aan lahayn caloosha wuu socodsiiyaa waanu u wanaagsan yahay jidhka ibni aadanka oo tufaaxu waxa uu ka mid yahay qudaarta ugu haldoorsan ee jidhkeena nafaqaysa ee awoodaysa ee weliba antioxidants fiican ayuu leeyahay oo xagga kaliyaha iyo beerka weliba khaasadan beerka ayuu aad ugu fiican yahay waxaanu jidhka ka saaraa sunta iyo wasakhda iyo dhibaatada ayuu kala dagaalamaa oo ka saara marka waxa la inooga baahan yahay tufaaxaasuna waa shayada ugu muhiimsan ee calooshaada ku socodsiinaya ee ku hagaajinaya ayuu ka mid yahay markaas tufaaxana isagana xilliga la qaataa waa salaada hore tufaaxa saddex qaybood baad u isticmaali kartaa inaad cabitaan iyo juice aad ka dhigataa ayaa ugu fiican oo cabitaan ahaan aad u cabto waxaad kaloo u isticmaali kartaa sidiisa inta soo qaadato oo si wanaagsan aad u maydho oo nadiif ah si fiican aad u nadiif karayso ama aad u clean karayso inaad markaa sidiisa u qaadato waxa kale oo aad u qaadan kartaa tufaaxa inaad isaga qudhiisa aad ku dhex darsato cabitaano kale oo tusaale ahaan oo kale afakaadho waad ku darsan kartaa cabitaanada kale ayaad u isticmaali kartaa aad ku darsan kartaa marka cabitaanada kale lagu isticmaalo waa laga yaabaa ujeedadii laga lahaa calooshii socodsiintii iyo faa'iidadii dhinaca jidhka inuu kala dagaalamo antioxidantskiina yaraadaan laakiin qofku inuu sidiisa u cuno ayaa wanaagsan ama inuu sameeyo inuu cabitaan iyo juice ka dhigto oo weliba cabitaanka iyo juice-ka marka laga dhigto ee salaada hore adiga waxba cunin aad isticmaasho ayuu faa'iido badan leeyahay dadka aan xanuunada gaaska iyo laabjeexanka lahayn ayaynu ka hadlaynaa dadka laabjeexanka way isticmaali karaan laakiin dadka gaaska qaar buu ku kicinayaa way iska dayn doonaan biidmillah qodobka dabcan isaguna ugu dambeeya ee very familiar-ka bulshadeenu ay ku yihiin ay aadka u yaqaanaan waxa weeyaan waa drink fresh milkiga ama caanaha markaa freshka ah ee dabeeciga ahi waxa ay qofka ku sameeyaan inay caloosha u socodsiiyaan waa qodobka ugu weyn ee dabcan bulshadeenu ay aadka u yaqaanaan ee ay markasta caloosha ku socodsiiyaan haddaba arrimahan sababahaynu ugu soo dhowr jeer horena marar muuqaalo aynu dabcan kaga taataabanay ayaa jira iyaguna calool istaag waa dhibaatada ugu weyn ee mushkiladda iyo dhibaatooyinkayna haysta xanuunadayna haysta ee aynan weliba xanuunba u ogeyn dadkii waxaanu inuu xanuun yahayba gu karan maayaan waxaad moodaaba qofki isagoo calooshii ay taagantay inaanu xanuun qabin calooshaadu hadday istaagto xanuun kaama marna xanuunna waad filanaysaa madax xanuun baad filanaysaa beer xanuun baad filanaysaa kaliya xanuun baad filanaysaa dhabar xanuun baad filanaysaa marka caanaha qofka helayaa caanaha dhayda ama freshka qofka helaya inuu aad u qaato ayaynu runtii aynu ka codsanayna caanahaas waxaynu niri vitamins bay leeyihiin minerals ay calcium iyo potassium ay kamid yihiin bay leeyihiin caanahaas waxaa ku jira dabcan vitamino iyaguna multivitamins oo lafta iyo dhuuxa iyo dhiigga intaba u wanaagsan intaba iyaga ayaa sameeyo abuura haddaba caafimaadka noocaas ayaad ka helaysaa caanaha
calooshuna way kuu socodsiinayaan oo way nadiifiyaan oo dhammaan wixii kugu taagnaa oo dhan dabadda kaaga soo saarayaan. caanaha geela ayaa xagga calool nadiifinta ugu wanaagsan, caanaha looda ayaa ku soo xiga. caano kasta oo dhaya oo iyadoo caloosha oo madhan baad cabaysaa, cunto ku dhex cuni maysid. calooshaadu markay madhantahay ayaad koob ama 2 koob aad isticmaali doontaa haddii Ilaahay ka dhigo. haddaba inaysaa bulshadeenu ay ula socdaan ayaynu cod dheer ugu sheegaynaa. muuqaalkana intaas ayaynu kusoo afmeeraynaa oo aynu kaga tegaynaa. la sii wadaaga oo u sii sheer gareeya bulshada aanu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan. dabcan su'aalaha waxaad naga soo weydiin kartaan dhinaca Facebooka, weliba dhinaca Facebooka insha Allah waxaanu aad iskugu daynaa qofku hadduu naga soo codsado inaynu ka aqbalno, haddii uu su'aal naga soo weydiiyana inaynu uga jawaabno. sidaa waa inaad runtii ula socotaan oo Facebook aanad hilmaamin. waa laga yaabaa kommentiyada markaad inoo soo qortaan ibni aadan baynu noo marmarinay waxayna yaro hoos mari karaan, ama commentiga ay mararka qaar ay tusaale ahaan aynu samayn karno in ayna ka soo jawaabin ama qofkii aanu jawaabtiisi rasmi u helin. laakiin waynu isku daynaa commentiyada baynu uga soo jawaabno ee dhinaca Facebook insha Allah iyo dhinaca commentiga waynu eegi doonaa, waanu ka wada socon doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.